halkan ciidanka haddaan reeyeelanahay waxa laga aasaasay 1 bishii afraad ciidankaas wuxuu ka tirsan yahay ciidanka Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliland ee saldhigga 7aad ee fadhiisigeedu yahay ilaa Yagoori ilaa iyo Laascaanood ilaa iyo Gambare ayaanu ka tirsanahay meesha waxay ka qabtaan ciidamada yeele nabadgelyo anaga ka shaqeyna meesha boolis male annaga u boolisa ilaa iyo Harwanaag Shululux Tula Yaxye meesha la yiraahdo Boqorkayn Eegaag ilaa iyo inta boolis meesha ka shaqeynaya booliska Kenya waxa loo baahan yahay in saldhig boolis meesha la keeno inta iyo booliska loo qabanayo meeshana shaqada gacantaan ku haynaa haddaan anagu ciidanka militariga nahay ninna anagu duulaha ku wanahay ninna kuma socono laakiin wixii deegaankayaga iyo dalkayaga iyo calankayaga nagu soo doonta talaaba sharci aan ku qaadaynaa ninka yiri in Shululux waa khaatumo been baa sheegtay kii Eegaag waa khaatumo been baa sheegtay kii yiri in Boqorkayn in meesha la golchano waa khaatumo been baa sheegtay anagu Soomaaliland baan nahay dalkayaga daacad baan u nahay waan ka shaqaynaynaa haddaba balaxdoonina dawladdu inay wax u qabato baahida magaalada deegaanka in wax loo qabto oo loo qabto boolis loo dhiso yeelay si aad u aragteenba waa meel shan taraala baabuurta meel kasta ka timaada barmuudada marta in loo sameeyo kasta loo sameeyo xitaa baabuurta la cashuuro ayaa la doonayaa anagu laakiin military baan nahay inta shaqada inaga wareegaya anagu gacantaan ku haynaa maamulka in la soo dhisiyo loo baahan yahay intaana loogu imanayno shaqada gacantaan ku haynaa haddaan ciidanka qaranka nahay ee saldhigga 7aad halkan ciidankan waxaanu ka aasaasnay 1 bishii afraad ayaanu ciidanka ka aasaasnay deegaanka yeele ciidankan wuxuu ka tirsan yahay saldhigga ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee saldhigga 7aad fadhiisigeedu yahay ilaa Laascaanood Yagoori Gambara ayaanu ka tirsanahay ciidanka qaranka xoogga dalka Soomaalinimada haanta ayaanu nahay halkan magaalada Bileys male annaga ka Bileysa ilaa meesha la yiraahdo Harwanaag Shululux Eegaag Boqorkayn golchano wixii ka timaada ee hawl qarana annaga ka qabana magaaladuna male Bileys annaga ka Bileysa annagu cidna kuma socono cidna duulaan kuma lihin laakiin annaga ciidayada iyo calankayaga nagu soo talaaba sharci aan ka qaadana nagu soo faragelisa ninna duulaan kuma lihin annagu Soomaaliland baan nahay jiritaanka Soomaalilandna waa muqadas Soomaaliland noolaato Soomaaliland noolaato Soomaaliland noolaato saldhigga 7aad noolaado ka codsanaynaa shacabka deegaanka kalceelkan yeele iyo odayaasha waxaanu ka codsanaynaa iyadoo meeshu aanay lahayn ciidan nabadgeliyo inta aanu ka gaarino annagu ciidankii qaranka ama looga samayn doono ciidan amni inay nala shaqeeyaan oo nagala shaqeeyaan nabadgelyada iyo deegaanka ceelka kan dadka shacabka ah عليسي جوده فلوس بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa dhammaan maamulka Soomaaliland anagu waxaan nahay hadii aan ka hadlo degmada Yeyle
iyo deegaanada hoos yimaada iyadoo ay hoos yimaado deegaan dhowra sida harwanaag shulux hostiro intaba waxaa ka jirta baahi ayaa ka jirta haddii ay tahay xagga maaragtay nabadgelyada way fiican tahay haddeer ciidamada jooga ciidamadaas amnigii way sugeen inkastoo aanan lahayn bilayskii aanan lahayn oo dee militarigu waa guud laakiin waxaa la yidhahaa ciidanka nabadgelyada waxaa la yidhaha bilayska marka haddii ay noqon lahayd dhammaan arrimaha bulshada hadday ahaan lahayd caafimaadka biyaha waxbarashada iyo wixii la mida sida baraagaha oo kale oo dadka maaragtay biyo xidhanada ceelasha la xirayo dhammaan waxaba waanu ka dayacannahay marka waxaanu soo jeedinaynaa haddii aanu nahay dadka beelaha u dhashay waxaanu u mahadnaqaynaa dawladda waxaanu ka codsanaynaa inay wixii aanu xaq u leenahay militari kale waana baahnayna waxqabad baanu nahay waxbaqabad ayaa dadku baahnay NCS-ku markaa waxa weeye waana naga xiran yahay oo de waxaa keentay dhaqaale xumo iyo mushahar la'aan iyo cid ka shaqaysaa ma jirto marka waa xiran yahay marka baahida caafimaadka hadday ahaan lahayd umulisooyinka haddii ay ahaan lahayd dhan kastaba waa ka dhibaataysannahay magaaladana waa ka fogtahay deegaanku waa ka fog yahay oo waa dugsiga waa dhul rafa sida xanaanada xoolahoo kale sida biyahoo kale dhammaan arrimaha bulshada haddii ay ahaan lahayd beeraha xagga waxbarashada dhammaan waa naga xoyey waxaan codsanaynaa in wixii waxqabada waxaa jira dhul godqalaah oo waraabuhu uu ka galo ama biyaha marka xilliga roobku doo biyuhu ay qaadaan oo aanu ka xiri kari weynin oo cagafyo loo baahan yahay iyo dhaqaale aad badan marka waxaanu codsanaynaa dhammaan wixii noocaas in wax nagala qabta ayaanu ka codsanaynaa haddaanu nahay degmada reer yeyle waxaan u mahad celinaynaa dowladda Somaliland maamulkeedina si wacan buu hadda uga shaqeeyaa ilaa intii hawshan ay dhaqaaqday dadweynaha aad ugu farxay waxaanu anagu doonaynaa in dawladdana aanu la shaqeyno iyaduna ay nala shaqeyso wixii waxqabad ee arrimaha bulshada dhammaan waxaanu doonaynaa wixii ka dhiman odaygii horaa ka hadlay in sida ay tahay waxna looga qabto in xerada bilayska la sameeyo la kordhiyo in ciidamada la kordhiyo wixii amniga iyo wixii intii maamulkaasi shaqeeyay si wacan buu u dhaqaaqay dee waxaan anagu doonaynaa oo aanu codsanaynaa in dawladdu ay noo qabato wixii deegaanku xaq u leeyahay odaygaana balballaadhiyey markaa dee dawladda Somaliland waxaanu ka codsanaynaa wixii arrimaha bulshada ka dhiman in siday tahayna loogu dhammaystiro ama waxbarashada ha ahaato ama ha ahaato xoolaha dawadooda ceelasha xidhniinkooda wixii administrationkii maamul uu lahaan jiray siday tahay in waxna loogu qabtaanu doonaynaa daawadayaal sida inay muuqato ceelkan yeyle wuxuu 30 kiilomitir ka xigaa magaalada Gumeys dhinaca koonfur galbeed yeyle waa magaalo caan ku ah xoolo dhaqato waa magaalo marka aad timaadid aad ugu imaanaysid kumanaan kun oo neef oo xoolo ah deegaankana waa deegaan iyagu ka horumaray dhinaca dhaqashada xoolaha nool